dab xoogan oo geystay khasaare hantiyadeed ayaa xalay ka kacay suuqa weyn ee Bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn Soomaaliya kaasi oo ku yaalaan ganacsiyo kala duwan. Dabka ayaa ka kacay qaybta loo yaqaan Huudeyda isla markaana dharka lagu iibiyo waxaana uu gaaray ilaa qaybta maacuunta oo ku dhagan suuqa Khalifa sida ay sheegayaan dad goobjoogayaal waxaana saacado badan socday dadaalo xoogan oo lagu doonayay in lagu damiyo dabka. gaadiidka dabdamiska ayaa xalay tagay goobta uu dabka ka kacay iyadoona markii dambe lagu guuleystay in dabkaasi la damiyo. qof ka mid ah ganacsatada suuqa weyn ee Bakaaraha ayaa waxa uu faahfaahinaya intuu la eg baaxadda dabkii xalay ka kacay suuqa weyn ee Bakaaraha ee magaalada Muqdisho. dadka maaragtay baaxadda dhulka uu qabsaday aad ay u weyn tahay runtii xilliyadii kala duwanaa ee dabka Bakaara soo maray kii ugu darnaa la dhigi karo waxa meesha musiibada ka dhacday wuxuu saameeyay laga soo bilaabo suuqa Bakaaraha qaybta Huudeyda ilaa iyo maxaa la yiraahdaa qaybta maacuunta ee dhinaca ku haysta suuqa Khalifa qaybta kale ee loo yaqaano hilib ariga iyo sidoo kale qaybta digaaga ilaa iyo Huudeyda halkaas oo ka soo kacay marka dhulka ma ahan dhul yar qaybta uu wada qabsaday dabka. waxaa la dhihi karaa meeshan waxaa ka dhacday musiibo aad u weyn khasaarada uu geystay waxaa ka dareemi kartaa dhulka uu ku fadhiyo dabka markuu ka soo bilowdo area aan ku leeyahay suuqa Huudeyda ilaa iyo qaybta maacuunta ee dhabar ku haysta Khalifa ma ahan dhul yar halkaas waxaa ku yaalay ganacsiyo kala duwan oo aad u weyn waxyeelo aad u weyn ka dhacday meeshan oo musiibo runtii aan ku tilmaami karo dad badan ku waxyeeloobay hanti badan ku baaba'day marka inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. dabka wuxuu ka dhashay koronto ka dhashay bilowgiisii. maxamed cabdullaahi tuulac gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu wado baaris ku aadan sababta keentay in dabka uu ka kaco suuqa weyn ee Bakaaraha isla markaana waxa soo celceliya. runtii khasaaro badan jira suuqiyo dhowr suuq oo fiican oo ganacsi oo baabaashay wali lama tiro koobin intii u dambeysaan ku jirnaa naf khasaaro nafeed ilaa hadda maana maqal bacdama meeshu ay habeen ahayd suuqana intiisii badneed u xirnaa waa khasaaraha nafeed waa yaraan karaa ma garan walina looma xaqiijin inuu khasaaro nafeed jiro laakiin hanti badan oo Soomaaliyeed oo dad ganacsatada ay leeyihiin waa meeshii ku baabaaday. annaga waxaan ku dadaalnay inaan dabkan uusan sii fidin waa uga mahadcelinaynaa shacabkii soo gurmaday iyo dadkii hantida lahaana waa uga tacsiyeenaynaa khasaarihii hantida soo gaaray laakiin ilaahay waa noo dhib yaray. wallaahi weli hadda annaga meeshaan ku jirana meel u dhow goobaha ganacsiga marka waa baari doonaa markii aan dabkan dhamaado. Bakaarana hadda markii ugu horeysay ma ahan marar badan oo soo noqnoqdaa marka dib baan kasoo sheegi doonaa wixii sababay laakiin waxaa laga yaabaa wax yar oo runtii intaanu hadda khasaaraha wax geystay wax aad u yar. suuqa weyn ee Bakaaraha ayaa marar qaar waxaa ka kacay dab xoogan kaasi oo geystay khasaare hantiyadeed waxaana ugu dambeeyay sanadkii 2017 dab noocan oo kale ka kacay suuqa.